السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دبديد داوديال وحان إذن كسو دوينيا برنامجكي فانكا إيو سوغانتا برنامجكم فانكا إيو سوغانتا ويسوغو عمد قادة دقار رمها كلا دواني سوغانتا هاد بنا أنو كسو مرتقادنا دادك إيوغو إيهلكا واه فانكا تضبعات كان وحا مرتين نوغو فنانك داود يوسف أحمد أولو يقانو حيس إيو وليبا dhanka kale oo durbaankan baba boongaha hadba sidaad u taqaanaad uu inoo tumayo Bushaar Saleebaan Xasan waan hubaa in caawa fanaanku uu sida roobka inagaga dhigi doono heesaha jacaylka maadaama wadanaanistiisu ay hays tahay dhankana marka durbaanka uu dhaqaajiyo in madaxa iyo waliba aad jiibta iyo jaanta idinkuna dhinaciina aad isla heli doontaan heesa aan ogahay oo runtii kalgacalku ka tifleeyahay baa inta barnaamijku socdo aad ku daawan doontaan waan ku soo dhaweynayaa marka hore Daawud Okay. Home Cable TV iyo barnaamijka fankiga suugaanta ku soo dhawo. Mahadsanid aad iyo aad ayaan kaga mahadnaqayaa barnaamijka fanka iyo suugaanta aan caawa aan joogo Home Cable TV oo nimcay aad halkan aad wareysanaysid. Saaxiibkii Busheer waad mugada hayana halka soo fadhiyo aad ayaan ugu qanacsanahay maadaama aan joogo hadeer aan ku suganahay Hargeysa. Aad ayaan u hambalyeynaya wariyaha wareysanaya asxaabta aan heesaha u soo bandhigi doono si fiican gartay aad baa u mahadsantay Bushaar soo dhawo Home Cable TV alaabta intaad garaacayso kulli xaalku waa dhagdhag baan filaya aad iyo aad haye horta ma qiyaasta talo imisa un baad kaga dhawaajinaysay wallahi nimcoy haye muddo badan weeyaan horta anigoo yar baan bilaabay waxan waan gartay adigu dhowr 10 sano weeyaan meelahaas waaw ma sha Allah ya macallinku waxa markaa macallinaha Abdinaasir Malaadi haye oo gacan qabtay oo xitaa intuu si jiray wax walba gartay marka imkana aniga macallinaba ya salaam waan arkaa Allah ilaahay oo sidaad u tumayso dadku iyaga qudhooday waa si fiican baad soo garanaysaa Daawud haye adaanu marti kaaga nahay Bushaar isagoo caawa durbaanka kaliya ayuu garaacaya laakiin ninka intaas oo malaayiin Soomaali ay marti uga yihiin barnaamijkan fanka iyo suugaanta waadiga su'aalaha iyo arrimahaas dib baan ka gali doonaa laakiin marka hore bal heesahaagii jacaylka ahaa ee lagu yaqaanay ayaan jecelay mid kamid ah naf jacaylku helay Okay naf jacaylku hore bas waa heesta dhawaan aan sameeyay oo cusub kuwa horta la igu yaqaanay way garanayaan heesii lagu yaqaan kuwa horta waan dadka shawqiyo kuwa waliba lagu yaqaanay mid walba barteedayna ugu tagaynaa yaa sameeyay heestaasi naf jacaylku hore bas sameeyay abwaan la yiraahdo Cabdiyare gartay Cabdiyare saaxiibkay weeyaan haye afkiisa caanaha lagu qabtay aad ayaan jeclahay naf jacaylku hore bas heesaha cusub bay ku jirtaa bas beed baan ka taabanayaa hore intaanad beedka ka taaban bal qisada heesta yey ku socotaa heestu ma adiga isla Daawuda mise waxay ku dhacday qisada Cabdiyare ayaa heesta sameeyay oo heesta qoray waan ii keenay waan la xameeyay waana qaaday laakiin si ima sii faafaan badanana fanaaniintu abwaanada uma sheegaan waa tahay laakiin kuwaaga markaynu tagno wad faafaahin doontaa وهاي والنف جعل كهلاي بينو كبلا بيننا كدب هساهاجي كله معانا بينو تجينا هيه بالدواقي سيو ضد كانوا وين تسمع قشيس واحد بلدولي يا عم
سلام hamuuntiyo diiftu ha iga hadhe busha aad baad u mahadsantay labadaasi markay sahlaan runtii dee meel bay dhaqaajinayaan waxaynu u imanaynaa heeso badan oo aad caan ugu ahayd ayaa jiro dadkuna si fiican u garanaya dee inta jacaylku hayiyo inta aanu hayniba heesahaaga si wanaagsan bay runtii u garanayaan waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo intaynaan wax kale u tegin macallinkaaga adiga kabanku yuu ahaa horta macallin kaban ibaray ma jirin laakiinse kabanka anaa bartay waayo danta ay u kaliftay anigoo weliba iskuul markaa dhiganayo oo iskuul secondary baan dhiganayay ayaan waxaan fanaaniin badan oo noo timi oo markaa xaflad loo qabanayay ardayda ayaa waxaan arkay fanka kan ballaaran iyo waxa sida loo tumaayo waxaan waaba iska dhexgalayba gartay fanaaniintii baan raacay fanaaniinta ayaa ka mid ah Abdullahi Mira shay baa loo yaqaan shay mira dhacan fanaaniin badan bay ahaayeen marka waan dhexgalay waan la jaan qaaday kamana kan anoo tumayo baan isarkay laakiinse qofkaas ay baray maanta qof ma tilmaami karay demaystiri ruuxan jacayl baa kuu qabatay oo buugga iyo qalinka kuu qaaday magaalada marka halkay ahayd boosaaso intii u dambeysay fankaagu boosaasu ka jiray boosaasu ka jiray intii hore oo dhan intii dambena waxaan joogay Djibouti ayaan joogay oo badanaa fankayga meesha ku dilaacay oo aad layga gartay aan heesaha kana ku duubay waan gartay oo aan si fiican fanka ugu fahmay Djibouti baa waa tahay intaynaan weliba haddana wax kale u tegin weli dhankii su-aalaha ayaan ku jira waxaa la yidhahdaa way isku lamaan yihiin aadamaha noolaha iyo jacaylku oo dee ma kala maarmaan adiga ma marba jacaylku fanka kula soo galay mise markii aad heestay kadib anigii jacaylkii fanka wada soconnaa baan soo galay fankas ku soo biiray jacaylku weligiis waaba iska kahayo ilaa iyo dhowr 10 jirkaygii anigoo jacaylka si fiican cabsantay ya salaam haye yaan fanka soo galaya weli sidii bii saaray igama badagoba kan jacaylka la yiraahdaa gartay aan saaxiibaan u nahay waan isbahalay sidii mudeetana weli eeko qofkii ugu horeeyay u tunto ma adigunba markii ugu horeysay isku bilaabay markii ugu horeysay horta anigu waan iska soo dhamaado markaas dadka aan wax la hortagi karaa ama qof aan qancin karaya oo qof kale u tumi karaya marka aniga ayaa iska soo bilaabay markii hore gartay mid ka mid ah heesahaagan dadka u soo qaadanaya kuwa aad ka caanka u ah waris baa la yiraahdaa laakiin dadku dee heesaha magacun bay ula baxaan waayaha adduunka ayay heestaasi u yaqaanaan iyo heesta erayadeeda iskale heesta waxa la Abubakar Yuusuf Axmed waa walaalka waan gartay laakiin qisadu waxa ku dhacday anigu heesta qisadeeda aniga ku dhacday waan gartay gabar aan aad u jeclaa baa jirtay oo jacaylkii ila galay markii aan kamanka iyo fankii aan bartay ila galay gabar aad u qurux badan ayuu ila galay jacaylkii gartay gabadhii anagii waxay noqotay xaajadii inay gaadho faamigii oo waan gartay laysu kaayo dooro laysu kaayo diido oo si wixii xaraarad bay yeelatay marka waxa wareysay darta baa soo baxday waan gartay marka gabadhii lay diid markii lay diiday ayaa la sameeyay maxaa wareysay darta culada wala yaqaan gartay marka waqtigii dambena aan heesta qaaday oo heesta soo bandhigay oo markii lay fahmay lay soo celilaysi wadiga le maxaa dad inaan isweyno jeclaa kala wacadkeena marka heestaasi waxay ku timi oo qisadaas si run ah ugu dhacday anay ugu dhacday wiilkii يا سلام ورجيني مركب كبن كاد جراعي صد رين كا إلى ذهي إن أنا دمانتي وذا دمين دون من الدل من نقد شعيل كاسم سه وا نقول نقدي هي إن شاء الله إميكا وهلا قفكاس هي سجعها ويجوشي لكن سدي ولي وأولاد أيوة ما شاء الله ده شعيل كينا ولي ده شربتي إنه كامو هارين إيه ما هارين هي ما بيجي ما هارين يدو ساسي تاي أي ولي سارية وانقرته مركا إن شاء الله
dadku in badan bay jacaylka ka warrameen way mar baa jirta aad leedahay maxaa wargeysyada ka waxaan filayaa dee in dadkuni warrameen oo jacaylku uu laysmid laysla dhex maray uu noqday maxaa wargeysyada saas laygu qoray haye heestaas waa gartay heestaa waris qisa badan iyo taariikh badan ayay leedahay oo aan halkaan ku koobi karayn oo fara badan oo ballaaran sida ku dhacday laakiin heestaas meel bay iga taallaa waaw dee waynu wada dhadhaminaynaa dhammaanteen soo sidaa maaha bishaaro haye gacanta idinma goodo weydinkaa dhanka miisiga يا بشار
haye kala garan waayo maya waa xusuustaad gashay iyo dareenkaad fahmaysaa aad u dheer baan galay haye waxaan soo xasuustay waqtigii aan qaadayay warno marxaladii markaa taagneyd baad dee ku sawiran markii uu noocaas siduu jawiga waqtigaas u ahaa haye baan dib u xasuustay marka dir hal ahaada maya mushkilad ma jirto waa iska dadka waa turunturooyinka jacaylka la yiraahdo waa wax iskaga dhaca dadka runtii inta badan waxa shaqa horay nooga sii soconaynaa waxa mid ilaylo waxa maleeynaa lashde muruqootay aad waayo dhadhan runtii macaan bay wadatay dadkii hore ee fanaaniinteennii hore aadka loo jeclaa ee kabanka caanka ku ahaa adigu yaad jeclayd oo fanaaniin badan baan jeclaa waan jeclaa maxamed Suleymaan Tubiic maxamed Nuug aad baan jeclaan jiray fanaaniin badan fanaan baa laakiin la yiraahdo way is-shabahaan oo markaad kabanka tumayso xantaas ma ku soo gaadhay عمر دولين تبع هاي وشبه ذا فنان بردولات ساميسا يعني قابك قاعدة شذا يدانك شعائل كيبي ملاها هيسها markii la soo markii shacabka wax qiimeynaya markii soo eegeen way soo dhawyeen bay labadan aad marka fanaaniin badan baa jira aan jeclahay oo heesooda aad ugu maraaqoodo محمد سليمان تبيع عبد الله كرريب قرتي وبدي فنانين هاي heesaha waa lagu sameeyaa adiguna waad samaysaa laxankana waad saartaa heesaha qaar inta lagu sameeyay ambaba adigu waad samaysay haddana aad istiri kama fursanayso in aad laxanka adigu saarto ma jire way jiraan heeso waxa jira anigu aan sameeyay haye oo laxanka saarsaday dareen jacayl iga keenay dee haye ayaa jira gartay hees la yiraahdo hadda turxaanta oo kale anigaa sameeyay miraheeda haye laxankan anigaa sameeyay heestaasi aad igu dhad heesaha cusubaan iminkaan soo wado haye oo wax badan baa kulli dib kamanka horta lagu dhageystay inay waan marta bal muusig hay oo dhankii muusigana waxa leedahay waan u tagay lagu kala guuray gartay dadkii muusiga weerar mar horta aan soo leexdaa oo bal imika hadda waxa jirta heesan sameeyay turxaanta la yiraahdo iyo heestii horaan qaadayay bilowga ahayd heesaha tan inshallah muusiga aan soo waa isla adiga qisada jacaylka bay ka hadlayaan heesatani horta anigayba si dhab ah ay khusaysaa waa heestii ugu dambeysay imika oo aan laxanka aan saaro oo aan qaado oo aan sameeyo aniga hees igu horeysay aan sameeyo turxaanta marka goob nooceeyaad joogtay ma keliga ma dad baa kugu lamaana jawi sideeyu ahaa haddaad xoogaa noo sawirto horta jacayl xul aad u xun baa i hayay haye dhulkuna wuxuu ahaa abaar haye wax doog ah lama jirinba lambarwaaqadaaba ku fiican yahay malaha gartay kayn cidla ah oo weli aan digin هاي ولي عصب في عن كسر بحل وانت markii horena de waxaan waayay jawigii fiicnaa iyo wixii iyo dhulkii cagaarnaa iyo hay marka waxa isu kayso qalbigii nooc waxa soo galay gart nooc kale heesaha awal ma sameyn jirin hay iskumana day jirin in aan sameeyo heestaas in Allah bi ka tibiyo turxaanka la yiraahdaa waan gartay aniga miraheeda laadi aniga sameeyay hay gabaran aad u jeclahay baan sameeyay hay turxaanka marka سيل كوفر بدن دي واد كل فنيسة سوما همركا هيه وين كان بشار بشار وقت امتحانتي
واو حيجة تجينا موناي معان أديكو إيه كلا وتعيشين مركز شعيل كيدن هايين هواين كيدين تلي أنا ود سديب تاسوما ما بسديب أبان سوسنا ما هو تذكر على مركز شعيل كيدن هاي وأوجشين إلا يدين تليه مر والبين يعني أنا ما بسديب هاي نلو تلي واو هدي مركز توي وأنا أكسنتي الله يلحق صاحب بشار هاي المرة اللي سديب جاي إلا يتليه بس والله ورنا ما ذي ويا تاسي وهجاك كل سفر بعد إمك كنت مدوهر جيسات كجوكتا مركز سفر جليسو يا ذو بتش عشين وسفر كاسو كوه هليو أو أتسرع ده الله نمع وحن جعلها كان هيا كذا مرة هدو كاس كل سعده هيا هدو إلى السعودة ها كان هدو إلى السعودة وحنا وعيو حنا يجمع حمادان هيا كذا اللي هو ماشي ذي ها وحن وجه على مركز سفر أيو أن سفر كديل أيو هيا إن أن كم كيجا عود كيجا إن أن وتو واو وقاري إساري هيا أين جعلها وحول بيويدعي كلام أو وين قرتي مركز اللي يقول سبود واحد لها جرت وين وكأجي الله مركز وين ويجعل aad markaaba tato mar hadii heesaha turxaan iyo adigu ii taliya aynu qaadnay halkii ugu darnayd ee waliba heesaha waa wada kalgacal waanigi iriyo mid ka dhacda ma jirto waa wada jacayl haday noqoto adigu ii taliya haday noqoto hadaan warisay jacaylka nacab jacayl نعب جعيل ورتن دب أي أكاور هذا نعب جعيل هاي قصته أنا جا يقول دعوة هاي وصاصا كأني هاي وصاصا أيام كسر الصفرين برعمر كان مرأي بعدين مقالة الثاني واتما ولا برع كل كم كلا قان هاي أمريكي يقول رئيسيان سحب وسب حي هاي برع ويبالي مكسر يان ضعف برع كنت جيبه هاي هذا كنت جيب مركي عن شوقي أفر بربنا ويا فنانين شو قالوا كان ويا فنانين ولا وحلي فنانين يا ليجي هاي نكلي يراهدو أنا على برعو أيوة حنو إيمي هاي أنا عورين اللي يراهدو هاي يوحنا نقول إيمي أبغى حنا موسي هاي أي نقول إيمي فنانين يدور كله نقول إيمي فنانين يرمح بشهر لنا يرو فنانين نقول إيمي هاي مركز أنمي والله يورث ور حقيقة تيم بوتسان كيما هو اللي أدبي سودوين سكر بدنه سبيشلا هاي اللي سودوين هاي شن بدي مركز لها مركز يجوا ها أيان وحن إنين أبوان وين أدي هاي يعني ونيو يا هاي زتا هاي والله يقبح صدق هاي ولا التهريبة وحلا هذه هاي بدل مرو وحلا هذه السعودي يلقى صار قدعي هاي وحن وباهنا هيس أنا قد خصيصة هاي نوع عاس ها مقصير بان حتى ما مقدر مقصنا مقدر هاي سيدي مقدر
markaas wuxuu sameeyey waa nacab jacayl kama nuucsada igu nidfogaa wuu igu nasto nabarre igu yaal ku noqnoqonaya intii ugu nagiyo sidii naas wax dhalay ii nuugaya nacab aan nahayn naafiye kalgacal naftan siduu ka dhigay goormuu nafsigu wuu naawile soo noqonaysana waaba heestaydiiba waaba meeshaanba fariistay halkiiba gama dhaqaaqin bartiiba fariistay haye saa markii uu la iska sitaan markiiba laxankan aan niga qabo waa adna laxankiiba taa haye waaw markii aan heesta la xameeyay abaan marka horta aad ayaan ugu mahadnaqayaa abaankii sameeyay Calanle Muuse ayaa la yiraahdaa heestii aniga oo la xameysan oo aan wato ayaan soo baxay Hargeysaan imi waan sii gudbay waxaan sii gudbay Djibouti ayaan marka heesta ku soo tumay nacab jacayl iyo heesahan qaar badan qaadayo iyo kuwa kale oo badan ayaan ku soo qaaday Djibouti marka waa nacab jacayl beedkaas aan watay ayaan wax la tagay Djibouti aan beedkii labaadna waxa sameeyay walaalkay Abubakar Basriye laakiin heesta waxa iska leeyahay Calanle Muuse ayaa iska waan gartay heesta waa hees amuuraysan heesta adigoo safar intaad u degtay haddana halka laga sameeyay marka dadku fanka dadna horta dhuuxu kan ku galay waan gartay fanka u jajabante fanka daacad oo fanku dhabka yahay dadna way iska qalaad way iska heesaano maanta dhanba midalka oo iska wax alaal wax la sheegay wuxuu ma kala garto hadda reesaha oo waqtiga reesaha kuwa soo bax kuwida dambe aad ayaan horta u xiiseeyaa heesahan dambe heesihii horena aad baan u xiiseeyaa balse kuwa ka dambe horta way wareeriyeen muus bay igu wareeriyeen waad alla la dada heesta nacab jacayl bayna markana dadka u qaadayna heesta nacab jacayl ayaan marka u qaadayna laakiin heestan waxa dhacday nibcay nin baa soo qaaday Axmed Biif la yiraahdo oo si xun u soo qaaday marka waxaan leeyahay dadka heesahooda fanaaniinta dhalinyarada kilka ilaa ah heesahay dadka u qaadayaan heesaha dado hay iska daayeen ay waliba sida xun u qaadayaan oo heesa kale ha samaysteen annaga hanoo kasnaga u codaynayno la xameynayno armisirin waa heestii saaxiibka waa tahay laakiin se uu barbu ka tagay uu kala dhantaalo heestii buu dhinac ka tagay oo si xun buu qaaday marka iyadoo dhammaystiran nacab jacayl waa tan
waa tahay nacab jacayl ayaynu alla ilahay taasina ay ahayd oo waliba aad qisadiina ka waranto hadda dee ay sawir ka haystaan heestu siday ahayd iyo sidii lagu sameeyeyba dadweynuhu runtii dee naanaystaadu waa xayse inay anbaba xays jacayl maadaama roob uu yahay inay anba roob jacayl magacyo kale oo lagugu xanto oo jacaylaba iska badan waa badan yihiin xays فبيدها حيس فليدها magacyo badan oo jacayl qabay waxba ii qarqariyaan dadkaas aan tarnamo kugu yeera waa hagaag heesii jacaylkii iyo inkastoo barnaamijku gabagaba yahay haddana waynu sii wadaynaa kama fursaneen heesa badan baad leedahay waxa kamid ah intaad sagalay jacaylka sidii sabigii oo dhawrto heesa kale oo badan baa iyaguna jira marka waxaynu rabnaa bal inaan dadka horkeeno laayaan laayaan jacayl aad baan heesta waa wada jacayl soo maaha heesaha de wakaase waxaan u heesinaa waa bulshada bulshadana ma xamay karno aad iyo laayaan jacayl jacaylkuna wuu isku abuurayn laayaan jacayl waa laayaan yaa iyada sameeyay waxa sameeyay laayaan jacayl ninkii la yiraahdo ayaa yiri aniga la heestan umraheeda ii dhiibay oo ii qoray waan gartay ana laxankan saaray waan codeeyay waxna qaaday heesta وين نكاهد إنه وين نسيت ديننا حيه أوكي وقت الله يجعل
سلام لمن كمان هينو لولا نمدح أولينا عاشقا إلا سمي ها سيدين كقلدنا هذا دقال بدي نجمو دحين بعد لا هيو لولا بعاشق النمو أنا قاعد سيني مركا وانقرطي برنامج كنت أسي أيام كسو جبجبيني حسيا شيء تانا جبجبين وحن آد وتشعل حي إنه بل حسوسنا وقتي دقار إيو هسه بقركي marka la yiraahdo runtii jacayl la soo hadal qaado cidda ugu horeysay lagu xasuustaa waxayna waa Umar Dhuule cidda lagu xasuustaa dhanka heesaha calaacalka iyo waliba jacaylka ee marka ay noqoto mid kamid ah heesihiisi ee haddaad ku soo gabagabaysa barnaamijka ka waran وبقرابي بقى هي ولا كلا لهين عمر دولا waata intayna kabanka ku dhufan waynu nabadgelyeynaa dadka si deegaha ay markaa ula sii raacaan aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinayaa fanaanka Daawud Yuusuf Axmed Xays iyo sidoo kale Bishaar oo intan bay isaguna Bishaar Saleeman Xasan oo inoo tumeeyay gurbaanka aad baa u mahadsantiin runtii labadiinaba si macaan baad isula hesheen dadkana daawanaya aad baan iyagana ugu mahad celinaynaa hadiyo jeer waqtigooda nasiyaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa farsamayaqaanada igala qayb qaatay dhanka barnaamijka dhanka film qaadistu waa Caydaruus Ismaaciil Cabdi iyo sidoo kale Cabdi Qaadir Goohe waxaana dhanka farsamada isna naga caawiyay Cali Cismaan Calimaan isku dubaridka iyo habeynta barnaamijkuna waa Caydaruus Ismaaciil Cabdi waa anigoo Nimco Samriya يا سلام بريان تجي عيلة شاب بريو سوما